markan Afgooye deegaanka ceelasha biyaha ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa qoysas danyar ah oo ku nool halkaasi waxaa la gaarsiiyay hilibka xoolaha udxiyada ee ciida sida faafahinta warkaasi magaalada Afgooye oo kaga soo diray wariyayga Cabdiweli Cali online. xoolahan oo tiradoodu gaarayso 70 neef oo lo ah iyo 200 oo ari ah ayaa hay'adda Somali Relief Network of America oo ah hay'ad caalami ah oo fadhigeedu yahay dalka Canada waxa ay u qaybisay in ku dhow 1,000 qoys oo barakac ku ah kaam ku yaala nawaaxiga deegaanka siinka dheer ee dhaca inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. hay'adda Somali Relief Network of America ee iyadu qashay xoolahan oo ay ugu tala gashay in ay ku qoodiso dadkan barakacayaasha ah ayaa mas'uuliyiinta hay'adda waxa ay qoys u guddoonsiiyeen hilibka xoolaha oo isugu jira lo iyo ari taas oo hay'addu inta badan soo gaarsiiso meelo fara badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan hilibka xoolaha ah ee ka timid Somali Relief Network of America iyo madaxa kaamka ka faa'iideystay deeqdan oo ka mahad celinaya. أنا بسم الله الرحمن الرحيم حتى بكونو كام سي أسود دين واحد نور سنة حتى بسم الله هذا كونو هيدي شرفت له وهيدي قتلينا وما حد 60 بخل كي بخل ما أنت مرة نو كنتين شلتن سي أفضل واحد نور سي ملاسانة أفضل إلى ما أنت إن شاء الله إذا مركي ماتن أو وربهن وبين سنة واحد يدي صوتنا إذا كنا هذا واحد يفرحني حلاي هتسي أنا إلهي نور أوكي حلاي إذا سافر فدنا واحد نور بري سيدي سجيني هذا الحمد لله رب العالمين هيدي شرفت له واحد سو هيدي قصدنا وهيدي كنسيسان مجا رسول أمريكا ونصوب وقتبريك وأيضا نوع رئيسيتنا المايس إن شاء الله هيلي بانو كنتي هيلي وخير الله سيو أنت بدنا إيجا بسوينا مركي هو رئيسي واي هذا أنا لو كنا يو هيلي مركي إن شاء الله تعالى مسؤولية ما هذا iyo walaalkayno Maxamed Harbi iyo magacayada Maxamed Aadan Ciise waa u mahadcelinay khayr Allah siiyo waxaan ka rajaynaynaa inaan soo caawiyo intaan inka badan mustaqbalka ugu dambeeyo aan ka rabnaa Ilaahay yiraahdo. wakiilka hay'adda Somali Relief Network of America ee deegaanadan Ibrahim Abdalla ayaa goobta uga mahad celiyay mas'uuliyiinta hay'adda Somali Relief Network of America oo uu ka mid yahay gudoomiyaha guud ee hay'adda Aadan Maxamed Ciise Aadan Gadale asaga oo ugu baaqay maamulka guud ee hay'adda in ay si laba jibaaraan hawsha adag ee ay bulshada u hayso hay'adda Somali Relief Network of America. halka aan soo booqani waa kaam ka mid ah oo Muqdisho oo daafaheeda sa arkaysaan waxaan hareer joogo odayaashii oo waxaan joogo kaamka ah waa mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta oo kaam ka mid ah madaxa kaamka joogo Nasiibullah maanta nasiib waxa uu yeesheen hay'adda ugu horeysa oo maanta hilib u qaybisa Somali Relief Network of America baaqna ay u dirayaan in kaalmo degdeg ay la soo gaarayaan waa dadku ka soo qaxay yani meel kala duwan ay ka soo qaxeen insha Allah ta'ala kuleeyaasha deegaankan way hadli doonaan waa hay'adda ugu horeysa oo hadda afka ku sheegay mas'uulka oo kaamka ah hilibka soo gaarsiisay hay'adda Somali Relief Network of America insha Allah ta'ala waa hablaha waan u qaybin oo u jeedaan mar walibana odayaashana hadda way noo dhiman yihiin insha Allah ta'ala waan siin doonaa sanadkan sanadkiisa mar insha Allah waxaan rajaynaynaa sidaas ka fiican sidoo kale waxay baaq ahayd ugu diraan in yani nolol maalmeedkooda inay kaafiyaysan ahayn yani saddexda waqti inay hal waqti ay cunayaan ayay sheegeen hal waqti ah oo qadada ah ayna aysan gaari karin oo nafta ay ku ceshanayaan inta walaalaha oo muslimiinta yani maqlaysa ayaa waxay ku baaqayaan in kaamkan magaciisa la yiraahdo oo Nasiibullah oo u dhow siinka oo loo yaqaan u dhow aad waxay ku codsanayaan saddex waqti qofka muslimka ah inuu helo ayuu jecel yahay waana waxaan ku xiriir gudoomiyaha guud ee hay'adda Somali Relief Network of America samafale Aadan Maxamed Ciise Aadan Gadale ayaa isaga qudhiisa hoos ka xariiqay qaar ka mid ah gobolada dalka ee hay'addu gaartiisay deeqdan xoolaha ah oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya munaasabadda ciida mubaarak iyo ciid wanaagsan meel kasta dadka aad joogtaan dadka Soomaaliyeed dhaliya dibadba Somali Relief Network waa urur
samafal ah oo saldhigiisu yahay dalka Canada una adeega waxgaarsiinta iyo taageeridda dadka danta yar ama dadka tabaalaysan ee adduunka meel kasta jooga si gaar ahaan dalka Soomaaliyeed. maanta waxaa farxad noo ah in aan ku qalay Soomaaliya 70 neef oo lo ah iyo 200 oo neef oo ari ah lana gaarsiiyay hilibkooda dad gaaraya 5,000 oo qof oo isugu jira caruur, haween, waayeel, agoon iyo dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee Xamar agagaarkeeda ah. waxaa aan aad ugu faraxsanahay dadka hawshan ka faa'iideysanaya maanta hilibkan la siiyey oo kala jooga Afgooye, xeryaha agoonta, ceelasha biyaha, Garowe, Qarxis, ay oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo meelo kale. ma aha markii ugu horreysay Somali Relief ay dadka caawiso. 25 sano ayay caawinaadan waday laga bilaabo Kismaayo ilaa Xamar ilaa Baxaafuun ilaa Burco iyo meelo kale oo kala duwan ilaa Galdogo. waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ciid wanaagsan. waxaana committed ku nahay ama aan diyaar u nahay inaanu intaas kana sii badino. Somali Relief Network of America ayaa ah hay'ad caalami ah oo fadhigeedu yahay dalka Canada, waxa ayna inta badan xoogga saartaa sidii loo caawin lahaa dadka danta yar ee ku nool meelo fara badan oo Soomaaliya ah. Abdiwali Cali, online TV-ga caalamiga ah ee Universal, gobolka Shabeellaha Hoose.